Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa khudaarta iyo miraha u wanaagsan dadka qaba sokorta. Sokorta waxa ay ka mid tahay cudurrada aad iyo aadka uga halista badan ee caalamka hadda faraha ba'an ku haya, gaar ahaan Soomaaliyana kusoo batay 5tii sano ama 10kii sano ee ugu dambeeyay. Sokorta waxaa lagu tiriyaa qofka sokorta qaba in uu nolosha ka dhacsan yahay, taasoo qofka sokorta qaba iyo qofka cabo khamriga ay isku mid ka yihiin dhanka nolosha. Markii aan ku leeyahay sidaas wax kale ma aha, waxaa weeye dhammaan cuntooyinka waxaa ka buuxo sokor. Hadduu ahaan lahay waxyaabaha inta badan lagu qadeeyo mise waxyaabaha lagu quracdo. Channelka haddaad ku cusubtahay subscribe inoo saar. Lambar 1 waxaa la yiri caleenta cagaaran mise khudaarta. Qofka qabo sokorta waxaa u wanaagsan inuu isticmaalo khudaarta, gaar ahaan bagalka, sidoo kale asalaatada iyo weliba qajaarka. Qajaarka uu wanaagsan yahay qofka sokorta. Sidoo kale waxaa u wanaagsan qaraha waxaa ku jira macaan, kaasoo aan waxyeeleynin qofka qabo sokorta. Maxaa yeelay haddii qofka sokor uu qabo, wuxuu aad u jecel waxyaabaha macaan, maxaa yeelay waa shay dhiba naftan. Wixii dhiba mar waliba waa ay raadisaa. Sidoo kale waxaa u wanaagsan miraha bahda looska la isku yiraahdo. Waxaa kale oo wanaagsan strawberry haddii aad cunto hal xabo oo subaxii ah iyo hal xabo oo habeenkii, uu kaaga filan yahay inaad sokortaada ay control noqoto. Sidoo kale toonta waa lambar 1 shayga koowaad ee lagu daaweeyo ama lagula tacaalo sokorta waa toonta. Qofka qabo sokorta ama qofka sokor isaga shakisan, waxaynu leenahay toon fara badan isticmaal. Dadka toonta si khaldan ayay u isticmaalaan, taasoo ah inay sidii kaniini ahaan ay u laqaan. waa khatar. Calooshaada iyo dheefshiidkaada ayay waxyeeleynaysaa. wax aad ilkahaagii adigu ku qaban weysay ha ku dayin in dheefshiidkaadii aad ku qabato, sida ilkahaagii ka samaysnay birta. waxaad kala cabsootay dheefshiidkaada aad iyo aad ku jilcan. Ha ku aaminin. Intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa miraha iyo khudaarta u wanaagsan.